hay-adda sirdoonka Mossad waa hay-ad sirdoon oo ka shaqeysa danaha Israa'iil waxayna qareejin jirtay aqoon-yahano badan oo u dhashay dalalka Carabeed oo ay markaa u aragtay in ay halis ku yihiin danaha Israa'iil waxaana aqoon-yahanada ka mid ahaa Cali Mustafa Mashruuf iyo Samiira Muuse oo u dhashay labaduba dalalka Masar. Cali Mustafa Mashruuf wuxuu dhashay 1898 wuxuu ahaa caalim Masri ah oo aqoonta fiisigiska aad ugu xilliyeera gacantiisa waxaa ku aflaxay culimo badan oo ay ka mid tahay Samiira Muuse Mother of Atomic Engineering hooyada quwadda tamarta. 1936 ayuu noqday madaxa kulliyadda culuumta Masar isagoo ahaa shakhsigii ugu horeeyay ee madax ka noqda kulliyaddaasi. waxaa dalka UK jaamacad ugu diray xukuumadii boqor Faaruq ee xilliga Masar xukumaysay 22 sano isagoo jira ayuu ka qalin jabiyay jaamacadda Nottingham ee dalka Ingiriiska sanadkii 1923 ayuu shahaadada doctorka ka qaatay culuumta falsafada isla sanadkii xigay ayuu haddana ku doomay shahaadada culuumta ee jaamacadda London firfircoonidiisii iyo kartidiisii oo ka dhex muuqatay culimadii farakutiriska ahaa ee waaga jiray ayaa galaafatay noloshiisii 1950 isagoo wax badan ku soo kordhiyay aqoonta fiisigiska ee dhanka atomikada loo isticmaalo dilkiisii ay sirdoonka Israa'iil u isticmaaleen sun howlgalkaana waxaa fuliyay nin gacan yar u ahaa boqor Faaruq. Cali Mustafa Mashruuf wuxuu geeriyooday 1950 qofkii labaad ee ku baxay gacanta Israa'iil wuxuu ahaa Samiira Muuse waxay dhalatay 1917 waxayna ahayd caalim dhanka atomikada oo u dhalatay dalka Masar. shahaadada dirimaadka gaaska iyo qulqulka shucaaca ayay ka qaadatay jaamacadda Manchester ee dalka Ingiriiska waxayna ka qayb ahayd culimadii Carabeed ee hay-adda sirdoonka Israa'iil Mossad u dishay aqoonta ay u lahaayeen quwadda atomikada darteed. 1948 markii lagu dhawaaqay dowladda Israa'iil leedahay Samiira waxay dhidbada u taagtay hay-adda tamarta atomikada iyadoo safar dibadda ugu baxday dalka Mareykanka si ay u soo sameyso baaritaan dhanka atomikada ah iyadoo howlaheeda baaritaanka ka wada dalka Mareykanka ayaa lagu codsaday in aysan dib ugu laaban dalkeeda hooyo ee Masar laakiin Samiira Muuse waa ay diiday. markii ay diiday maalmo kadib intaysan u soo dhoofin dalkeeda Masar waxaa gaarigeedii yaraa ee ay ku socotay dul jiray gaari xamuul ah iyadoo halka ku nafbaxday meedkeediina waxaa lagu tuulay meel biyo mirayn ah. baaritaan la sameeyay ayaa gudaha u galay in hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ka dambeysay dilkii Samiira iyadoo Israa'iil ka kaashamanaysa in Samiira Muuse aqoonteeda tiknoolajiyadda oo la dusha dhanka dalkeeda hooyo ee Masar. Samiira Muuse waxay geeriyootay sanadkii 1952.